dowladda hoose ee degmada Gabiley iyadoo ka duulaysa bilcinta iyo ballaarinta wadooyinka dhexmara magaalada Gabiley ayaa saaka waxa ay bilowday hawlgal ay ku burburinayso meeradaha soo galay wadada halbowlaha ah ee dhexmarta magaalada Gabiley taasoo ay dowladda hoose ku sameynayso ballaarin bilcin iyo dhirayn. wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Somaliland ahaana duqii hore ee degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse oo aanu kula kulanay goobihii saaka hawlgalkan laga fuliyay ayaa waxaanu weydiinay sida uu u arko hawlgalkan ay saaka fulisay dowladda hoose ee degmada Gabiley waxaana uu duqa degmada Gabiley iyo golihiisa deegaanka ku amaanay waxqabadka ay ka fulinayaan degmada Gabiley iyo guud ahaanba gobolka. waxaana uu yiri wasiir ku soo dhow telefishinka SBC bal waxaad nooga warantaa sidaad u aragto hawlgalkan ay saaka fulisay dowladda hoose. bismillaahir rahmaanir rahiim. hawlgalkan ay dowladda fulisay waxaan arkayaa hawlgal guul ah. haddaynu doonayno magaalo qurux badan iyo dhismo qurux badan iyo dariiqyo qurux badan waa inaan wadooyinka la dhex degin, waayo bilicdii magaalada la hagaajinayaa. dowladda hoose waan hambalyeynaya inay sidan iyo si ka duwan oo maaragtay ka sii sarreysaba ay hawlgalkan u baneeyeen wada baneynta. dadkana waxaan uga digayaa inay wadooyinka dhex degaan. arsaaqada wadooyinka ma taalo, arsaaqadu qof waliba wixii ilaahay qoray sidiisa kale u helaya. laakiin dadkeenni baa mushkiladdu waxay noqotay inay doonayaan inay wadadii dhex talaan arsaaqada. aan runtii waan hambalyeynayaa, waanan ku bogaadinayaa, waxaan leeyahay bartaa kaga haya, hore u socda. dowladnimaad muujiseen, waxqabad baad muujiseen, horumar baad muujiseen. magaaladii oo la doonayo in la qurxiyo iyo haddana inaynu noqonno meel walba cooshad wadnihii magaalada in laga dhex taago, taasi wax loo baahan yahay maaha. anigu waan soo dhaweynayaa tallaabada dowladda hoose saaka qaadayna waa tallaabo dowladnimo oo loo baahan yahay. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.